بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waan idin salaamaya. ku soo dhowaada mar kale iyo muuqaalkeennii aan idin ka soo duubi jiray meelaha aan maro ama turuqa waddooyinka kala duwan ama manaatiqa kala duwan. maanta ku soo dhowaada magaaladan, meeshaan waxaa la yidhaahdaa magaalada addaa'ir baa la yidhaahdaa. waa xuduudda yeman iyo sacuudiga u dhexaysa dhinaca jeesaan. dadka qaarna beli maalik bay u yaqaanaan. walaalayaal, marka meeshaan aan ku socdo, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo ku sheegay kitaabkiisa kariimka: wasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. bal intaad dhulka martaan waxaad soo fiirisaan kuwii horay u beeniyey, ilaahay u beeniyey. marka walaalayaal, magaaladan kor ayaa loo fuulayaa. dabcan addaa'ir waan ka soo baxay. meeshaan marka jabalkaas, subxaana allah, laa xawla walaa quwata illa billah. walaalayaal, sidaan hore inii ku sheegayba walaalayaal, ilaahay wuxuu ina siiyey dhul barwaaqo ah oo biyo iyo beero iyo xoolihii iyo wax waliba ay ku badan yihiin. dhulka markaad martid ayaad ogaanaysaa nicmada ilaahay uu ina siiyey iyo siduu ilaahay inoo ku fadilay dhul bannaan oo wanaagsan oo wax walba ku wanaagsan. biyihii iska durdurayaan. meeshaan fiiri, waa jabal, buuraha dhaladooda weeye magaaladan. waxaa la yidhahdaa jabal fiifa. jabal fiifa ayaa la yidhaahdaa. buurtan dhaladeeda ayaa loo koraa. waa meel aad u tacabsan, aad u dhib badan. buur dhaladeedde waad garanaysaa. buur korkaa kore waxay ku leedahay, dabcan waa buurta dhaladeedii. waxay leedahay buurtaani, anigu maana arag, waxaa la yidhaahdaa dadka meeshaan deggan fayfi baa la yidhaahdaa. fayfidaani marka waxay leeyihiin oo ay ku beerteen meeshaan qaadka waddankan ka mamnuucaa baa la yidhi. balse waan arkaa in laga cuno bacdal maraad. waa ku arkaa dadka qaarkood intii dagaaladaan iyo waxaana aani jirin. walaalayaal, marka arrinku waa sidaa. jabal fiifa ku soo dhowaada walaalayaal. dabcan meeshaan u rarnahay halkan waa meeshaan nuska ah, maxadadan weeye. maxadadan nuska ah ayaan u rarnahay. maxada fayfa ayaa la yidhaahdaa. marka walaalayaal, ku soo dhowaada mar labaad iyo mar saddexaadba. ilaahay dhul barwaaqaa buu ilisay. ilaahay dhulkeenna haynoo yasiro. nicmada iyo wanaagga uu inagu siiyey waa inaynu ku qaadannaa. dadku dhulka uu deggan yahay, haddana sidaasoo ay tahay waaba ay mirtaax bay ku yihiin. laanna waa dhulka ilaahay uu siiyey, meesha ilaahay uu ku beeray weeye. awoowayaashoodii, ayeeyooyinkoodii. halkan mustawdacan ayaanu rarnay. marka meeshooda fuquuriin bay ku yihiin. subxaana allah. innaguna ma rabno inaynu dhulkeenni intaynu beeranno aynu tagno aynu wax u qabanno. yaa keennii waddanka ka baxay oo horay uga tegey wuxuu rabaa inuu ka sii tahriibo.
oo waddan kale ka sii aado kuwii joogayna waxay doonayaan inay waddankii iskaga tagaan marka walaalayaal bal idinku aayaddaas macnaheeda si fiican u dhuuxa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wayanduruu kayfa kaana caaqibatu almukadibiin yaa